kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta 426aad ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo saaro howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka Soomaaliya ee UNTMIS. mahadsanid Faisa. waxaan maanta barnaamijka uga hadlaynaa haweenka Soomaaliyeed ee ku jira ganacsiyada yaryar, shirkadaha iyo ganacsiyada heerka dhexe. waxaan diiradda saaraynaa kaalinta waxtarka leh ee ay haweenka Soomaaliyeed kaga jiraan horumarka dhaqaale ee dalka Soomaaliya. waa sax Cabdicasiis, sida ay tilmaamayso warbixin ay sanadkii 2020 daabacday hay'adda caalamiga ah ee shaqada, haweenku waxay 60% ka yihiin milkiilayaasha ganacsiyada, sidoo kale haweenku waxay 70% leeyihiin ganacsiyada aan rasmiga ahayn ee dalka Soomaaliya. haweenkan hal abuurka leh waxay abuuraan shaqooyin, waxay dhiirigeliyaan dhaqaalaha maxalliga ah, waxayna ka qayb qaataan horumarka dhaqaalaha dalka guud ahaan. waa sax, waxaan dhammaanteen ognahay in markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 in ay haweenku hoggaanka u qabteen ganacsiyada yaryarka ah si ay u taageeraan qoysaskooda. maantana ayagoo taageero ka helaya gudaha iyo caalamka, haweenku waxay dhaqaajiyaan kobaca dhaqaale ee Soomaaliya, ayadoo in badan oo ka mid ah haweenku ay bilaabeen ganacsiyo gaar ahaan dhinacyada cuntada, iibinta badeecooyinka iyo bixinta adeegyada. dhab ahaantii ganacsiyada haweenka ee xuduudaha ka gudba waxaa lagu qiyaasaa malaayiin doolar sanadkii. waa shaqo wanaagsan oo bogaadin mudan, laakiin haddana waxaa jira caqabado badan oo haweenka kaga gudban helitaanka deymaha iyo inay ballaariyaan ganacsiyadooda. aad iyo aad Cabdicasiis, taasina waa sababta ay muhiim u tahay inaan aqoonsanno oo aan taageerno haweenka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah. waa sax Faisa. haddaba si aan wax badan uga ogaano kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee kobaca dhaqaalaha dalka, waxaa maanta marti noo ah Igor Iskarsia oo madaxa barnaamijyada ka ah hay-adda UNIDO ee qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta warshadaha, iyo Faadumo Sheekh Cali oo ka tirsan aasaasayaasha ururka haweenka ganacsatada Soomaaliyeed. soo dhawaada. Igor, haddii aan adiga kugu bilowno, maxay tahay sababta ay Soomaaliya muhiimka ugu tahay in mudnaan la siiyo horumarinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee ay haweenku hoggaamiyaan? I've been working in Somalia for the past 6+ years, supporting the priorities of the government of Somalia on productive sector development. 6 sano iyo xoogaa ayaan ka shaqaynayay Soomaaliya anigoo dawladda kala shaqaynayay waxyaabaha mudnaanta u leh, gaar ahaan horumarinta wax soo saarka, gaar ahaan dhinacyada gaarka loo leeyahay. dabcan marka aad ka shaqaynayso dadaalada wax looga qabanayo kobaca dhaqaalaha ee waddanka, waxaa muhiim noqonaya dareenka la siinayo haweenka ku hawlan ganacsiga. ganacsiyada ay haweenku hoggaaminayaan ayaa si weyn uga qayb qaata horumarinta dhaqaalaha gudaha Soomaaliya. awoodsiinta haweenka ku hawlan ganacsiga waxay abuuri kartaa shaqo, waxay kor u qaadi kartaa dakhliga qoyska, waxay gacan ka geysan kartaa dhimista ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadantinimada. marka taageerada la siinayo haweenka ganacsatada ah waxay noqon kartaa mid riixda horumarka dhaqaalaha waddanka. haweenku waa qayb ballaaran oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. in muhiimad la siiyo ka qaybgalkooda dhaqaalaha waxay waddanka fursad u siinaysaa inuu ka faa'iidaysto awooddiisa si uu horumar u xaqiijiyo. waxaan ognahay in ay Soomaaliya wajahayso sinaan la'aan dhanka jinsiga ah, gaar ahaan dhinaca ka qaybgalka dhaqaalaha. sidaas daraaddeed, taageerada la siinayo haweenka waxay noqon kartaa qaab wax looga qabto sinaan la'aantaas, isla markaana lagu xaqiijiyo in haweenku ka qayb galaan horumarka mustaqbalka waddanka. Supporting women-led SMEs can also become a way to address these inequalities and in a way ensure a much more positive and effective contribution of women in the overall society for the future development of the country. maxay yihiin tallaabooyinka ay UNIDO Soomaaliya ka hirgeliso si loo xoojiyo kobaca ganacsiyada haweenka, gaar ahaan ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe? Well, thank you. This is something that we've been looking at quite extensively over the years. arrintani waa mid aan muddo dheer eegaynay. xitaa waxaan leenahay barnaamij gaar u ah awoodsiinta dhaqaalaha ee haweenka, kaas oo aan doonayno inaan u gudbinno qaar ka mid ah deeq-bixiyayaasha. waxaan rajaynaynaa inaan barnaamijkaas hirgelinno mustaqbalka. hay-adda UNIDO waxay la shaqaysaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale sida rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo sidoo kale qaybaha gaarka loo leeyahay sida kuwa taageera ganacsiyada bilowga ah, gaar ahaan rugta ganacsiga
iyo dhinacyada maaliyadda. rugta ganacsiga waxaan wada aas-aasnay unugyo lagu horumarinayo ganacsiyada haweenka. tani waxay haweenka siinaysaa fursado ay ku kordhiyaan xirfadahooda sida xirfadaha maaraynta ganacsiga, qiimaynta mashruuca, kaydinta xogta ganacsiga, xiriirka iyo tababarada. annagoo la shaqaynayna bangiyada ganacsiga Soomaaliya waxaan fududaynay in haweenka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ay helaan deymaha ay u baahan yihiin. arrintaas oo ka caawinaysa inay ballaariyaan ganacsigooda kana dhabeeyaan fikradaha ganacsi ee maankooda ka guuxaya. waxaa kale oo aan ogaanay waana mid u baahan in wax laga qabto. inta badan deymaha ay dalbadaan ganacsiyada dumarka Soomaaliyeed waa kuwo ka hooseeya $5,000. lacagaha intaas ka badan waxaa inta badan codsada ganacsiyada raggu maamulaan. waxaan sidoo kale la shaqaynay Siimad iLab, iRise iyo Harhab oo midowga Yurub uu maalgeliyo si aan u xoojinno awoodsiinta dhaqaalaha ee dumarka. larger market. These help women diversify their product, of course, and access market within the country, but also with the prospect of be able to produce products that might be able to meet the requirement for international standards. ugu dambeyn, tallaabooyin noocee ah ayaa la qaadi karaa si loogu dhiirigeliyo haweenka inay ku biiraan ganacsiga? Well, over 40% of the women entrepreneurs struggle to secure financing due to the stringent collateral requirement that oftentimes the banking sector apply. Lack of credit history, in ka badan 40% haweenka waxaa culays badani ka haystaa maalgelinta bangiyada maadaama ay adag yihiin shuruudaha bangiyadu. tusaale ahaan waxay bangiyadu u baahan yihiin dhaqdhaqaaq bangi iyo taariikh deymeed. marka waxaa muhiim ah in la helo barnaamijyo maalgelineed iyo xarumo arrimahaas fududeeya oo loogu talagalay fududaynta baahiyaha haweenka, gaar ahaan fududaynta shuruudaha bangiyada ee deymaha. marka waa nidaamyo maaliyadeed iyo kuwa aan maaliyad ahayn oo u baahan in la isku dhafo si ay u guulaystaan ganacsiyada haweenku. waxaa sidoo kale muhiim ah dhismaha karaanka haweenka ganacsatada ah, gaar ahaan dhinacyada aqoonta maaraynta ganacsiga, hogaaminta, xirfadaha dijitaalka ah, gaaritaanka suuqa iyo dhismaha kalsoonida iyadoo la tixgelinayo xaaladaha bulshada. haweenka ku dhaqan deegaanada miyiga ah waxaa lagu soo warramayaa inay hooseyso aqoontooda maaliyadda ee ay leeyihiin, taas oo ka hor istaagaysa inay abuuraan ganacsi oo ay maareeyaan. marka waa muhiim in la xoojiyo fahamkooda iyadoo loo marayo tababaro gaar ah. waxaan aaminsannahay dhisidda karaanka haweenka, gaar ahaan kuwa aan soo marin nidaamyada waxbarashada rasmiga ah, inay kaalin ka qaadanayaan horumarka haweenkaas iyo kan bulshada guud ahaan. Actually make a substantial difference for those communities, but also for the development of these areas. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaal. kaasina wuxuu ahaa Igor Scarcio oo ah madaxa barnaamijyada hay-adda UNIDO ee qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta warshadaha. welina dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tubta nabadda, balse iminka aan u gudubna Faadumo Sheekh Cali oo ka tirsan aasaasayaasha ururka haweenka ganacsatada Soomaaliyeed. waxay ugu horreyn ka jawaabaysaa su-aal ku saabsan caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahaan haweenka Soomaaliyeed ee ku jira ganacsiyada kala duwan. haweenka ganacsiyada ku jira caqabadaha haysto. caqabadaha mid waa mid guud oo wadanka oo dhan ka jirto, oo dhanka amniga, dhanka maaliyadda, dhanka wadooyinka way tiro badan tahay. laakiin wax hadda qaas haweenka ku ah oo ayada gaar macnaha haweenka u taabanaya waxaa ka mid ah dhanka oo maalgelinta iyo dhanka farsamada oo xirfadda. dhanka maalgelinta oo kaleeto haddii lacag maalgelin u baahdaan oo intay ganacsi abuurto qofkii juhdi soo gelisay, waqti soo gelisay, ganacsi socon karo oday, laakiin wixii uu ku dhaqaaqi lahay oo dhaqaale ah tabarteeda ay gaari weyso kale, meelaha oo deymanka laga helo kale caqabaday ku tahay inay deyn soo qaataan, sababtoo shuruudaha bangiga ma buuxin karaan. haddii lacala ay buuxiyaanna damaanada dhib ku ah. haddii lacala damaanada xataa ay haysato xataa waxaa culays ku ah meesha ay lacagta kasoo celinayso qofka. waxaa la weydiinaya financial system, macnaha in oo maaliyadeeda dhaqaale ay si oo waadaxa ay tahay mana awoodaan, sababtoo ah xirfadaas bas haweenka kuma badno. waxaa ugu wacan oo horta ugu badan waxa waaye ganacsiga oo haweenka marka hore la abuurayo horta waa ganacsi iska yar, ganacsigooda ganacsi yaryar waaye. ganacsi waaweyn hadda haweenku jiro waa yar yihiin, inkastoo la helayo haddana aad uma badna. meesha ay ku badan yihiin ganacsatada yararka waaye. ganacsiyada yararka marka waxaa laga yaabaa inay shati xataa haysanin, macnaha ay ku ganacsato oo intay badeeco leh meel kasoo gadato ay dib usi iibiso. waxaa laga yaabaa inay akoonba lahaynba oo bangiga dhanba uusan akoon uga furnayn oo aysan isticmaalin. waxaa laga yaabaa shuruudaha bangiga oo keensanayo oo leeyahay intaasoo shardiya lagaa rabaa
qayb badan oo kamid ah inay buuxi waayaan kabaasigooda aad u yar awoodooda yar waxa kalantooda waaweynka waaba iska dhib badan yihiin damaanada iyo dukumiinti rahana iyo waxyaabo badanaa la isweydiinaya bangiga laakiin meesha ugu fudud ayba gaari karinba inta meeshaas weynba aan la gaarin meelaha ugu fudud oo akoon ma leedahay iyo meeqa sanaa akoon kuu furan yahay iyo akoonkaaga lacagtii aa ku isticmaasho soo bixi iyo shatigii aa ku ganacsanaysa intaasoo sano keen haddii la dhahaba ma awoodaan inay geeyaan sababtoo ma u dhisno macnaha si oo ganacsigooda macnaha wax walba ay iska xaqiijiyeen ma lahan faadumo maxay yihiin noocyada taageero ee ay u baahan yihiin haweenka Soomaaliyeed si ay uga gudbaan caqabadahan taageero hadday heli karaan macnaha wax badan ay u baahan yihiin wax hadda lasoo koobi kara habeeraatee ma lahan laakiin waxaa ugu muhiimsan inay horta helaan maamul wanaag fiican inay aqoonteeda laga dhiso xirfadaha laga dhiso ganacsiga oo hal abuurka ay ku samaysatay hadba sidii uu usii baahi lahaa dhanka marketing oo kale laga caawiyo waxay u baahan yihiin oo kalentood in oo laga dhiso maskax ahaan macnaha qofka inuu horumar kusii tillaabsan karo oo meesha maanta uu joogo meel ka sarreysa uu tegi karo sida badan waxaa ku programsan aniga maanta wax ugu filan haddaan helo oo caruurteyda u geysto maxaan kaloo u baahanahay marka dhankaas xataa in lagu wacyigeliyo way u baahan yihiin hadda haweenka ganacsiyadooda horta way kala duwan yihiin qofba nuuc waaye marka aniga shaqsiyan kasoo qaadoo kale waxaan ahay beeraley waxaan ka shaqeeyaa wax soo saarka beeraha waa ka ganacsadaa beertana waa beeraa waana ka ganacsadaa caqabadaha marka oo ku imaanayo iyo fursadaha macnaha oo aa isleedahay haddii meeshaas lagaa taageeri lahay meeshaas aa gaari laheed waxaa kamid ah in oo waxa adiga aad soo saaraysid oo beerta kaaga soo baxayo oo aad rabtid inaa ilaa aad dhoofiso aad gaarsiiso inta ka sokaysa macnaha gaab badan oo waxaa ku jiro oo aadan ku dhiiri karin inaad ka gudubto marka dhanka maaliyadda oo macnaha isheeg inaad deyn hesho kale oo aad wax ku kobacsan karto inaad hesho xirfad dhis aqooneed oo kale waxyaabo badan oo haweenka laga taageeri karaa jiraan hadda haweenka markay ganacsi abuurto kale shuruudihii hadda bangiga aan kuu sheegayo kale waxaa kamid ah inay haweeneydii shati ganacsi ay soo qaadato shatiga ganacsiga meesha uu yar $350 waaye waxaaba laga yaabaa qofka dhanba inuu $1,000 ku shaqeeyo ma goosan karo marka shati oo $300 iyo maka bixi karo taasaa horta caqabad ugu horeysa muhiimad intee la-eg ayay leedahay taageerada bulshada gaar ahaan midda ragga si loo xoojiyo guusha ganacsiyada haweenku ay maamulaan ama ay leeyihiin muhiimad fiican ay leedahay sababtoo dhanka bulshada haweenka way taageeraan sababtoo shaqo abuur badan ay sameeyaan waxa ay ka shaqeeyaan wax maadaama ay ganacsi yaryar yihiin dadka ku hoos nool tirada ka batay oo ka faa'iidayo haddii marka taageero oo dhanka ay helaan siboorti fiican waxaa laga yaabaa inay shaqo abuurkooda oo sii bato oo meel fiican ay gaaraan marka waxaan isleeyahay taageerada aaday muhiim ugu tahay bulshadana macnaha wax badan ay gaarsiin karaan ayaga laftirkooda maadaama ganacsiga oo lafdhabarka wadankaba ganacsiga yaryar waaye ganacsiga waaweyn waxawaaye waxay kusii haminayaan dadka inay dabaqyo dhistaan iyo waxyaabo waaweyn ugu dambayn maxaad kula talin lahayd gabdhaha ama dumarka ku haminaya inay abuuraan ganacsiyo ay leeyihiin waxaan kula talinayaa gabdhaha horta inay ganacsiga soo galaan waa kula talinaa inkastoo ganacsiga oo caqabado badan leeyahay oo iska dhib badan yahay haddana qofka muhiim waxaa ay horta inuu ka go'an yahay inay ganacsi gasho haddii qofka oo mar inay ganacsiga ka go'an yahay way shaqaysan kartaa gabdhaha marka waxaan aad uga talinayaa inay ganacsiga soo galaan fursado badan ay ganacsiga ka bannaan caqabadana waa ku horgudban yihiin qofka marka aan caqabada u bareerin fursadda ma gaari karto marka inay caqabadaha u bareeraan oo ganacsiga soo galaan waa kula talinaa aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegeystayaal taasina waxay ahayd faadumo sheekh cali oo ka tirsan aasaasayaasha ururka haweenka ganacsatada Soomaaliyeed oo nagala qaybgalaysay barnaamijka tubta nabadda markana dhegeystayaal aan yara dhageysano hees ka hadlaysa muhiimadda dhaqaalaha maraakiibta dhoofto xibahayna dhigataa xoolaha dhuraysaanayahayo maqalkuba dhabbay ugu bogaane madyahay dhawaaqiyo dhacadiidka daayo madyahay dhawaaqiyo dhacadiidka daayo dhaqaalaha
dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha daneeya dhaqaalaha 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 daneeya heestaasi ka hadlaysay muhiimadda dhaqaalaha waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiri iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan